بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرديدا آدي أدو قيمها بضن وحين سوهي كتابك عمدة الأحكام كتاب الرضاع أي هالكان كبلا بدونه baabka ka hadlay qaabka nuujinta islaamka wuxuu ka yiri ilmaha maaragtay la nuugo wax naaska nuugo hooyo aan hooyadii dhasho ahayn. dhaqanka Soomaalidu aad buu ugu yar yahay, laakiin carabtu aad bay u isticmaaleen waagii jaahiliyada iyo marka kaleba. ilmaha markii uu maaragtay abaartu dhacdo waa la kaxeen jiray oo islaam baa loo geyn jiray, way nuujin jirtay. marka dhaqankaas islaamka wuxuu ka yiri ilmaha naaska wada nuugay iyo ahkaamta ku soo dureertay ayaan wax ka tilmaami doonaa باذن الله تبارك وتعالى. xadiiskanaga koobaad عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس الله كان واسغي به قال وحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحو يري في بنت حمزة gabadhii حمزة النبي عليه الصلاة والسلام gabadhii حمزة ayaa loo soo gudbiyay inuu guursado. marka hadalkii uu ka yiri waxay ahayd laa tahillu li gabadhatan xalaal imaho ma guursan kara weeyaan. yaxrum waxa xaaraan ka dhigayo min ar-radaa'i naaski aan wada nuugnay yey naas wada nuugeen hoos baa lagu sheegaya. yaxrum waxa xaaraan ka dhigayo min ar-radaa'i wada nuujinta aan wada nuugnay ma yaxrum min an-nasab sida qofka nasabka oo walaashayo kale aan u guursan karin bay iga noqonaysaa. naaska cidda wada nuugeena waa kala marka wahiya ibnatu akhi buu yiri waa gabadhii walaalkay. walaalka waa kuma waa Hamza waa cam nabi sallallahu alayhi wasallam, laakiin naas wada nuugay marka walaalkii buu noqonayaa. huwa ma hiya waxa weeyaan ibnatu akhi min ar-radaa'ati walaalkay gabadhiisa weeyaan oo naaska aan wada nuugnay oo naaska wada nuugnay. saas marka nabiga alayhi salaatu wasalaam uu leeyahay gabadhatan xaraam bay ga tahay oo ma guursan karaayo oo sida walaashay kale weeyaan. maxaa yeelay walaalkay baa dhalay way waa tahay marka gabadhu de walaalka oo dhalay guursan kartaa adeerka u tahay la weeyaan ma guursan kareys gabadha walaalka dhalay ma guursan kartaa adigii baaba waa adeer way. marka faakada saas uu leeyahay nabiga ma guursan kara salaatu rabbi wa salaamu alayhi. xadiiskana kale can Aisha radiyallahu ta'ala anha maxaan ka qaadanaa marka xukunka xadiiska aan ka qaadanaa ahibati fillah waxa weeyaan in qofka naaska aad wada nuugteen ilmaha u dhalay aadan geey ay ku noqon karin gayaan iyo cid aad geysid ma guursan karaysid way ma guursan karaysid way. nuujinta naaska la nuugayo naftirkiisa xuquuq buu leeyahay. xadiista dambaa noo sheegi doonto oo waxa weeye qofka naaska la wada nuugayo waa qof ay dhibaato iyo u geyso ilmahaas ama hooyadii baan maaragtay naasaheedu caana laga waayey ama abaar baa dhacday oo caana darre baa jirto saasaa marka u wada nuugteen duruuf baa keentay intii cunug hooye naaska afkas kaga geliso culimadaas waa ka hadleen waa diideen xoogaa badan bay ka dheheen. واضح. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة الله كرمه قالت وحيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام وحيري إن الرضاعة نوجنت وناسك لو نوجويان أما نوجمد ناسك هي تحرم وحي حرامسة ما يحرم من الولادة وحي مارت وضع الشرع أي مارت حرامت كده يسقفك وضع الألتين تاسو قال وحي حرام كده يساويان تاسو نقع كفى من حديث كاس. وعنها أي أم عائشة حديث كلام لو سوريي قالت وحيتري إن أفلح نك اللي يراد أفلح أخا أبا القعيس ولالكيها استأذن علي وحو إيقاد البضي بعدما أنزل الحجاب مركا حجاب كلا سودا جي أيو أقل كيدا أمنا عائشة أقويمت مركا قريقي وإذا كد البضي إنو سوقله. فقلت وحاكوير والله إلهي بأكون أرتي لا آذن له إذن معايو حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي قوي يدمأوا يراهدو قلوا سوق لي كرايا مركو وبعد ما أنزل الحجاب مركو حجاب سودا قوي. فإن أخا أبا القعيس لك اللي يراهدو ليس هو معها أساقا أرضعني متك إنو جي معها ويان لكن سي أرضعتني وحا إنو جيسي امرأة أبي القعيس gabadhii uu qabay Abil Qays ninka leeyahay asaga walaalkii ahaa ayaa inuu jisay asaga ma nuujinin. marka asaga ma nuujinta maxay ka wada qof su'aal weyn soo din kara oo ragaaga naaska dadka nuujila waxa laga wadaa walaalkay baa ma aragtay gabadhu goormay caana yeelataa naaska marka la guursado nin uu u dhaxo markaas caano naaskeeda yeelanayaan. fal ajli hada
waxa ay ka wadaa de aniga walaalkeed asaga ma aragtay maxaan idhahdaa ninkaan weydiinaya walaalkii la dhashay abilqucays walaalkii aniga walaalkii xaaskiisaa naas nuujisay ninka kan asaga naas ima nuuji walaalkiis wey saas leedahay walaalkiis oo hadda uu leeyahay idan aan kugu soo galo aniga walaalkiis naaska ima nuujinine xaaskiisa ay nuujisay marka saasay tiri umuna Caaisha radiyallahu ta'ala anha واتها ينكو علي بركة وعنها أمنا عائشة الله كران لقضي قالت وحي تري إن أفلح نك أفلح لي هذا أخا أبا القعيس ولالكي أها استأذن علي وحي قد البضي بعدما أنزل مركي لسود جيي وإذا ما يقدر منه يقول صوق لوي بعدما أنزل مركي لسود جيي الحجاب آيدي حجاب كهلي فقلت وحنكوري والله إلهي بان أرتي لا وحان مركي أيضا أصلح هذا الشيء ومركا حسن waxaan istirbeetay wallahi uu idin maayo hatta istaadan ila nabiga ninkaas uu ku soo gali karaya oo mahram la'aan guriga iman kara ila uu yiraahdo waxa weeyaan maxaan idhaahday ma uu idmaayo tiri fa inna warka hadalka si macna fa inna akha abal qucays walaalki abal qucays hada ninkaan la dhashay asaga walaalkiisa laysa huwa ardacani asaga ma nuujibay tiri oo waxay leedahay ninka aniga hadda uu leeyahay walaalkii maadaama xaaska walaalkii aad nuugtay ahaan uu guriga soo galgalayo anigu walaalkii naas ima nuujin walaashi xaaska ay nuujisay leedahay walaakin ardacatni waxa ay nuujisay imra'atu abal qucays xaaskiisa ay nuujisay way nacam fadakhala alayya rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa ii soo galay hadda halkaas ina fahanteen ma raba waxaan jeclaa aala ina qofku wax fahansiyo ilaahna noo yasire ilaahay wax fahansiyo sheekadu waxay u biyo shubanaysaa haddaad xadiiska markaa dhamayno oo xadiis kale la galo waad fahmi si fiican u fahmaysaa marka ila soco insha Allah faqultu waxaan ku iri yaa rasuulka ilaahayow inna rajula ninka laysa huwa ardacani mid inuuji ani asaga oo ninka anigu ima nuuji bay tiri nacam anigu ninka ima nuuji bay tiri walaakin ardacatni waxa ay nuujisay imra'atuhu xaaskiisa ay nuujisay oo ninka ani ima nuujinine xaaskiisii baa heedhe inuujisay waa tahay faqaala marka wuxuu yidhi idan marka faqaala wuxuu maartay ina arajula ninka laysa huwa ardacani ima nuuji walaakin ardacatni waxa ay nuujisay imra'atu xaaskiisa faqaala marka nabi wuxuu yidhi idanii lahu ninkaas u idan guriga soo galo nabiga saas ugu yidhi fa inahu ninkaas aad celinaysid camuki adeerkaa waay taribat yamiinuka waa meesha aan kana taribat yadaaka oo gacmaha bala ku dhacdo wax noocaas kala marka gacanta midigta lagu jari waayo kala hadal noocaas kala weeyaan qaala curwata wuxuu leeyahay radiyallahu ta'ala wuxuu leeyahay fabidalika كانت عائشة سادة عائشة وحاهي تقول مثل هذا حرموا وحو إذا كحرام من الرضاعة نوجنت ما يحرم من النسب وحا نسب كحرام إذا كأبا إذا مارتي أو إذا كحار إذا كان مارتي حرم يا ويان ان محل هذا وحو نسبك إذا كحرمي وحو نسبك إذا كحرمي أيو مارتي ناس كان إذا كحرمي يا بيت الأم عائشة رضي الله تعالى عنها وفي لفظ كله ليهي استأذن علي وحا إذا ضلبضي أفلح نك اللي يراهدو فلم آذن له أما إذن فقال مركو حويري وكان أنت أنا كفاوي فقال وحويري يا هلا أفلح وحويري أتحجبين مني أنا بيجي حجابا نساء أتحتجبين مني أنا بيجي حجابا نساء بكويري وأنا عمك أنا أذرك فقلت حكوري كيف ذلك سيكون نقطة أذرك نقطة وسيكا حجابني ويان قال حوير أرضعتك وحا كن نوجسي امرأة أخي ولالكي حاسك قبل أريد ولالكي لنا شيء حاسكي سوا كن نوجسي باللبن أخي عانها ولالكي من يكون نسول قبل نتن ناس أتكنوكتي عانا أتكنوكتي دي ولالكي بقى قبوي مركز اللي قرصو قبل الله تقو أي وما أورقاد أي معرتي عانا يالتا مركز ولالكي حاسكي سويانو عانها ولالكي بقى عبتوي ساسو كوا هذلك قالت وحيت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم باويديي فقال وحوي صدق أفلح نكل إذا أفلح ورنتي إذاني له أيضا مركب ماشي وحكا قادرينا سفع على الصعود ماشي وحكا فهمينا وفاقا كقادرنا وحوي هاي لبان أولا لا ولا وقف أولا لا نك حاسكي سهدي كنو جيسو لا وقف أولا لا
mid ka mid a haddii xaaskiisa ku nuujiso ninkan kale wuxuu noqonaya automatic adeerka asagana waa kaa xaaraan ma ku guursan karo adeerkaa u noqonay adeerkii ma ku guursanay waa maya marka ninkan guriga umuna Caaisha imaaday hadda xadiiska fahmaysaa guriga umuna Caaisha imaaday radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha idan buu ka dalbaday way ka diiday nabiga weydiisay wuxuu yiri waa ninka kan ha soo galo markaas nabiga Allah ninka kan aniga ma nuujinaaske walaalkiis ima nuujina xaaskiisa nuujis markaasuu yiri ninka kan marba haddii xaaskiis walaalkii xaaskiisa ay ku nuujisay waa walaalkiis xaaskiisa haday ku nuujisay xaaskaas caanaha naaskeeda galay iskama imaanin ninkaana qabay falaajli hada ninka kan iyo ninka walaalo maadaama ay walaalihiin adeerkaa buu noqonayaa guriga waa u soo idmi kartaayo adeerkaa aabaha la dhashay bedelkiisu ku buuxinayaa wey alfiiri marka meeshaas naaskoo la wada nuugo xurmada uu leeyahay iyo meesha uu qofka gaarsiinayo nacam meesha uu gaarsiinayo weeyaan ay nabiga marka qaala wuxuu nabiga faqaala wuxuu nabiga calayhi salaam sadaqa waa uu run sheegay aflax ninka la yidhaahdo aflaxu idani lahu u idan taribat yamiinuka gacantaada ku go'i weydo adu midigtaada lagaa jari waayo hadal noocaas kala ay iftaq marka hadalkii uu kuma taribat hadaaka hadalka waa habaar waa marka anaka marka macnahaan oo habaar buu noqon laakiin carabta sidii ka aaminsaneed baa lagu sheegay ay iftaqarat faqri kugu dhacay waxa noocaas kala wal arabu carabtuna tad'u ala rajul qofka way habaarayaan wala turiidu oo kamana wado wuquucal amri bihi inuu habaarkaas ku dhaco ilma yar hooyisa inaysa balaay kugu dhici maartay marka hadalkaasoo balad kugu dhacdayo ilmaha balad kugu dhacso xalaga inaysan ka ahayn maxaana balaay ku dhacdo afka waa ka dafay ama hadal iska caadi carabta dhaqankeedu u ahaa weeyaan وعنها أمنا عائشة الله كرهال نقضي نعم قالت وحيتري دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام بأي سوقلي وعندي رجل أصون إلى فديه فقال وحويري يا عائشة من هذا نيكا كاري وكما نيكا كلا فديه نبي يقول سيبا سوقلي عائشة نين كرسي أكفدي وارك قلت waxaan ku yiri akhi min ar-rada'ati ninka kan waa nin walaalkeeyo naas baan wada nuugni marka halka waxa laga fahmayaa qofka ay gabadhu naaskooda nuuga inuu walaalkii yahay faqaal wuxuu yiri ya rasuul ya Aisha unzurna iska eega man ikhwanukunna dadka walaalihina iska hubiyo ku yiri fa inna ar-rada'atu naas nuujintu min al-maja'ati gaaja daraadad bay la rabaa inay ku timaado marka hadalkaas dhowr wax badan baan ka qaadan walaal qofka gabadhu hadii gurigaaga ood ka maqanta imaadid gabadhii oo nin la fadhiyo waagi hore dadka waxaad garanaysaa wali miisaal Soomaaliya oo jirta idin kaga faa'iideynay halkaan oo maartay idin kula wadaagaya weeyaan dadkii hore waxay ahaayeen gabdhuhu marba dinaas la wada ninkan walaashiis waa marka gurigu iska imaanaya isku soo galaya marka laakiin nabigu akhlaaqdiisa fiirisa uu sameeyay musa caroonin nin gurigiisa nin dhex fadhiyo wali kursi caasho u dhow oo laga yaaqtay dharkeeda qafiif iska yahay oo xijaabku ina aan ku xirnay ayuu arkay nabiga kaleey salaam nabiga seef laba boodo ninka madaxa ma ku dhufan waa uu sugay waxa jirta marka amthilada Soomaaliga idin la wadaagay waxay tahay in ba hadda ka hor nin lacag ku lahaa baa la yiraahdaa markaas wuxuu ku yiri warniyahow maxaan yiraahdaa lacagtii waxaysi waliba waxay ku lahaa waxay deynta ku lahaa hal neef oo geela warniyo geelaysi markaas niyahow geelay maanta waxba ma hayo faqri badan baa ay hayo laakiin hasha waxa u dhigmaan kugu bedelay oo maxay tahay xigmad baan ku siinayaa wiil markaas xigmad baa haayay isii wiil xigmadaan dhageysiino hubsiino erayga iyo hubsiino wax walba iska hubi ha ku degdegin buu ninka ku yiri ninkii asagoo erayga quursanayo yaaban oo war ninkan xigmadaan ku siinaya ma hubsiino wiil hayo iska soo bax gurigiisa iska soo aaday geeliisii uu soo ceshtay guriga markuu ilinka soo istaagay ayuu wuxuu arkay deerka hore ee guriga dadka ribaadiyaha banaanka seexdaan guriga ilinkiisa xaaskiisa meesha ay jiifta dirinta nin garab jiifo arkay waa taqaanaa waa baashi tuuridu gal kala soo baxay marka inuu ugu shuuro marka madaxa soo baarta dadin xaaskaaga dirinta dhinac kale ka jiif waxa way cajiib ah bas markuu kala baxay tuurida galkii uu rabo inuu ugu geliyo ayuu soo xasuustay xigmadda ninkii hubsiino waa iska hooyir ninka horta midii gacanta ku ceshaday galkii markaas wuxuu ka xaaskiisa heblaay sida nabiga uu sameeyay man hada bir ninka kan muxuu ahaa tay soo fadhiisay ha walaalkay bay tiri
dadka hore waxay gabdhaha waa la soo bakan jiray waa la soo baxsan jiray ciddooda in la aqoon baa laga yaabaa gabadh intii lala soo fakado oo iska dhisto maartay muddo kadib la xaaltamo waxay tiri waa walaalkay xoolaa ka dhumayo meeshaan caaw noogu yimid oo waa nala casheeyey halkaan hoose badaalaya markaasuu yidhi wal alla ninka kelimada uu ku sii hubsiino hal baa la siistaa hal dhan baa siistuu yidhi maanta kelima waa run buy marka hubsiino meesha Soomaali ka tada hubsiino hal baa la siistaa hal neefo geelo wuxuu iga qaato iska hubi laakiin waxba ii badbaadisu leeyahay marka qofka marka waxaad ku aragtid fatabayanu marka ilaahay iska hubiya hubsiino hal baa la siistaa nabiga markuu usoo gal wuxuu ku yidhi yaa Caaisha man haada walinka kan waa kuma markaasay u sheegtay tiri walaalkii oo naas awada nuugnay maasha markana wuxuu yidhi undurna iska eega man ikhwaanukum laakiin iska hubi walaalkii kasa iska dhigin qof aad hubtiin in naaska awada nuugtaan guriga soo galay ka dhigantahay marka waxa kale laga qaaday nabiga kaleey salaatu salaam sida uu ninka raggeena laga rabo inuusan iska ahaanin qof dayuus ah oo gurigiisa naagtiisa waxay la walaaqanayso kale aanan dani haabe ka gelin oo ma aragtay aan ka warqabin waxa ay ku dhaqmayso oo iska soo dhaweysanayo oo marxaban iska dhahayo la waa inuu ninka ragga og yahay gurigiisa wax ka dhacay taasna waa muhiim jiddan waa وعن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج أم يحيى نينك اللي يراد عقبة بن الحارث الله كان يقول أنه أصلا تزوج وحو قرصدي أم يحيى جزاك الله خير أم يحيى أي قرصدي بنت أبي إيهاب قبل اللي يراهدو فجاءت مكة وحاوتي بسوا قبل أم يحيى قبو وبنت أبي إيهاب قبو فجاءت وحاوتي أمة هويني مركز أولي ما عرفت أمة سوداء هويني مدو ودون هايت أي أتمت فقالت waxay ku tiri qad arda'tukum labadina isqabo ana idin nuuji labadina isqabo naaskayga wada nuugtay waa arin qariib waa xaaska agay oo lagu yiri goora walaalaad noqonaysa Soomaa fadakartu dhalika lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam yiri nabigan u sheegay qaala nabigu wuxuu yiri marka qaala wuxuu yiri ninka gabadha qaba wuxuu yiri fa a'rada anni nabigu waa qaracay oo aga jeestay nabiga markaan ku yiri nabi allow gabadha tan maxaan iraahday xaaskayga waxa la leeyahay islaamna madow waa loo tiwado waxay ugu tiri ana idin nuuji labadiinaba faarada aan nabiga wajiga ka jeesto yiri qaala marka wuxuu yiri ninkii hadlayay ahaa gabadha umu yaxya guursaday fatanaxaytu nabiga waan la soo wareegsaday meeshuu iga jeesay u jeesay uu dana ka soo wareegsay fadakartu dhalika law arrinkii baan u sheegay faqaala wuxuu yiri nabiga calayhi salaam wa kayfa waqad zacamat an qad arda'atkuma وكيف سيكون قنص حاس وقد زعمت اسلامتي وحي idin sheegtay an qad arda'atkuma inay ma aragtay aydin nuujis war ma shafadhiku meel ka kacway islaamta hadii la wiilin gabadha aad qabtid naas baa wada nuugteen war naa ku noqon meesha ka carway marka halkaas uu nabigu ku yiri ninkii meesha go'do ku furay uu yiri hal hawlaale waa wixii hore jaahil qofka waxaan ka qaadanayna qofku wuxuu jaahil ka ahaa looma haysto laakiin maalinkii bayinada imaado waa inaad meesha ka dhaqaajiso fadhiku ma yaalo way عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال وحو يري خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صوبحي يعني من مكة مقالة مكة كصوبحي فاتبعته وحصور عضي وما أردت كسر طبعا قاعدسي ابنة حمزة قبل وحمزة علي تنادي وأيضا رواقع سؤاليس يا عم أديركيو فتناولها علي وحا قبل قعنت كل جي وصوقبتي علي بن أبي طالب فأخذ بيدها قعنت يدي وصوقب صدي وقال مركو يكون لفاطمة وحاسكي سيئهيت دونك ابنة عمك دونك أي خذي وقبصو ابنة عمك قبل أذرك على قعنت كلك فاحتملتها وسوق حاستي فاضما سوق على قبلي مركز قبل اسكو قبص مرك فاختصم فيها قبل والغدود يا قادني قبل والسوق حيي نبي فتح مكة أهيد بالله نبي مركز لا سو لابنيي oo loo soo noqonay xagga Madiina ay gabadha dadka bay ahayd mar gabadh yaa ka xaysanaya liin waa la isku qabsaday markii isku qabsaday Ali wa Zayd wa Ja'far radiyallahu anhum ajma'in Ali iyo Zayd iyo Ja'far isku qabsaday marka faqala Ali wuxuu yiri ana ahqqu biha nabi Allah gabadh ana soo kaxaystay ana wax xaq badan wahiya ibnatu ammi wa ina adeerki Hamza dhalay وقال جعفر على لشحيري ابنة عمي aniga waa ina adeertay buu yiri intaana waxa ii dheer وخالتها تحتي هابرتنا انا دخدي انا قبو وقال زيد بن حارثه وحو ليهي ابنه اخي انيغا waa walaalkayo xamza waa walaalkiis muslim waa فقضاها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا xukumayo wuxuu u xukumay li khaalatiha gabadha inay habarteed loo geeyo Jacfar maadaama uu habarteed u qabo in habarteed loo geeyo وقال النبي wuxuu yiri al khalatu habarirtu bimanzilati al ummi boska hooyaday joogtaa وقال wuxuu yiri li Ali wuxuu ku yiri nabiga soo Ali qalbigiis u qabo wuxuu ku yiri anta minni wa ana minka Ali anigu adiga iga mid tahay ana adan ka mid ahay
وقال لجعفر جعفر وحكيري أشبهت خلقي وخلقي أنا وإيش شبهذي وإما تشاه وجهها وإيه شبه ذا وخلق أخلاق صفات وإيه شبه ذا. وقال لزيد وزيد وحكيري أنت أخونا أخوك ولكن أنا مسلم كاتهي ومولانا قفك مولاها نجا عن حرينا واته النبي عليه الصلاة والسلام. marka waxaynu ka qaadanaa النبي عليه الصلاة والسلام sidoo qulubtooda u ilaaliyay gabadhina in mar walba hadii la isqabsado adeer imaadaan gabadhana habarta joogta habarta ka xaq badan oo manzilatul ay joogtaa. kitaabul qisaas baabkaana baabul qisaas weeyano wuxuu ka hadlayaa qisaasta iyo sida loo kala xukminayo. an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabi alayhi salatu wasalam wuxuu yiri la yahillu halal umaha damu imri'in muslimin qof muslim dhigiisa halal umaha yashhadu an la ilaha illa Allah توحيدك قرايو واني رسول الله انا رسول ما اي قرايو الا باحدى ثلاث صدح بالدل كراوي صدحدود مدود وي الثيب الزاني قفك انتو غور سو مر هدنا زينيستي iyo والنفس بالنفس نفتي نفدي شيء iyo والتارك لديني قفك دينته كتغ المفارق للجماعه قفك دين الاسلام كبح مرتدك اصلا ولا دل كراي قفك سو زينيستي نفتي نفدي صدحاس دل كراوي واتهي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أحلى يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه يري أول ما يقضى بين الناس ذاتك وحقوه الرأي لك الحكومة يوم القيامة ما نتقيمها في الدماء ديقوي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم عليه. عن سهل ابن أبي حتمة رضي الله عنه الله كرنا قضي قال وحويري انطلق واحد دقاجي عبد الله ابن سهل بايا دقاجي ويوم حيصة ابن مسعود نك ليراد إلى خيبر آدم حق أي خيبر بآدم وهي يومئذ المالك أسنا صلح هشيس باكجري فتفرق لوذن ويسوق كلا جلوا كلا دقاقين فأتى وحو يمد يا إيمان أيو سهل بوحو يمد نك ليراد نعم 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 وحو لوذن ويا كلا تجين فتفرق فأتى وحو يمد محيصة نك ليراد وحو يمد إلى عبد الله بن سهل عبد الله بن سهل هذا كلا دقاقين وحو يمد وهو أصغو يتشحط دح مارت مشاحيو أما ku galgalanayo في دماء dhiigis ninkii la dilo dhiigisi ku dhex jiro ayuu yimid waa qeylay war maxaa dhacay dadkii baa isku imaadeen markii dambe waa soo kaxiyay marka qatil asoo la dilay fadafano marka wuu aasay thumma qadim markaas magaalada Madiina ku soo carro soo aaday fandalaq waxa soo raacay Abdurrahman ibn Sahal ninkii dhintay walaalkii baa soo raacay Abdurrahman ahaa iyo muhayyasatu iyo waxwaysatu oo abnaa Mas'ud ahaa ayay kala soo raacay ila nabi عليه الصلاة والسلام bay u imaadeen marka إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام أي مركز أوضي إمادين منك أيكو أسوتويان. نعم فذهب عبد الرحمن يتكلم عبد الرحمن وحب لا يقولوا هلا يا مرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وكوين هذا الكلود دايو وهو أحدث القوم ذات كانوا حقوين عبد الرحمن فسكت عبد الرحمن وامصي فتكلم وحاد لبدي أضيال فقال النبي حكي مرك هلين أتحلفون مكود عرنيسان وتستحقون قاتلكم مثل إن كدلين حق وإيه لسان الدين اللي سيه أو صاحب صاحبكين قالوا حيده وكيف سيدابان نحلف أقول عرنا ولم نشهد أنا كنا نجوب جوجه سي لودل أنا أجين مو واحد أرجع نقول عرنا ولم نرى أنا أرك قال له حيره فتبرئكم يهود ب50 يمينا هي يهود هيدين دارته كنتن دارته هاي كود دارتان وايه قالوا حيدهن وكيف سيدابان نأخذ أقادنا بإيمان قوم كفار قالوا دارته سيكون أمنا بيدهن فعلقه النبي صلى الله عليه وسلم من عند النبي أمرك الديدي بحيوي صلوات ربي وسلامه عليه. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام حيري يقسم 50 منكم وايه كنتن دارته على رجل منهم أيك نك مدينو نك كدل كنتن أديك دارته فيدفع والدين ديبي بالرمتي حتى نك يكتنايسن أو حركوا حين بالدين كينا يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام قالوا حيدهن أمر لم نشهد كيف نحلف أرنا أن نجوب جوجه سيولارنا رسولك إله يوم قال له حيري فتبرئكم وايه وحايدين ورواية كلواي وحايدين بري نقونيس يهود بأيمان 50 منهم كنتن دارتو دين كود عرنيان قالوا حيري يا رسول الله قوم كفار ضد قاله فوداه marka qof dad gaala seen maartay ku aaminaaleen fawadahu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam min qibli nabi xaqiisu ka bixi salaatu rabbi wasallam alayhi wa fi hadith sa'd ibn abi ubaydah fakariha rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wuxuu karhay an yubdila damahu ninkaas uu dhigiisi noqdo wax kama soo qaad nabiga diidanaawi fawadahu nabiga waxa uu bixiyay 100 min ibil sadaqa geel hala oo boqola ayuu bixiyay sadaqa uu hayay sallallahu alayhi wasallam an anas ibn malik radiyallahu anhu أن جارية إسلام جارية أضان هيد وجد وحال هلي رأسها مدحيدا مرضودا بين حجرين الوكالة معرت براجية الوكالة جيحي لما نجح
faqiila waxaa lagu yidhi haweeney oo si nafbaxayso man facala haada bik yaa waxaan kugu sameeyey fulaanun ma hebel baa fulaanun ma hebel kalaa lagu yidhi xataa dukira ilaaba laga sheegay yahuudiyun qof yahuudi ah fa awma'at bira'siha madaxiisa u luxda marka haa ninkaas ay dilay fa ukhida alyahuudi ninkii yahuudigaa lasoo qabtay fa actarafa waa uu qirtay fa amara nabiyu sal sl nabig wuxuu amray an yurda ra'sahu bayna xaj asagana madaxiisa lagu kala baraajo laba dhagax inta uu sameey in lagu sameeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam amray walimuslim wanisaa'iyi waxaa ku sugan can anasin radi allahu canhu ana yahuudiya nin yahuudi ahaa qaatala inuu dilay jaariyatan gabadh addoonay ah calaa awdaaxin inuu ku dilay maarata katiinad iyo maarata waxaas oo fida ah oo luqunta ugu jirtay qaar baa qaar waxay gacanta ugu jirtay fa aqdaahu biha nabiga marka uu arguday oo ninkii waa loo dilay rasuulullah nabiga saasuu amray in loo dilo ninka waa la dilay way salawaatu rabbi wasalam saasuu amray can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ardaah abi hurayra allaha ka raali noqdee qaala wuxuu yidhi lamaa fataxa allahu tacala ilaahay tabaaraka wa tacaala markii uu furay fatxu maka weeyaan hee nacam lamaa fataxa allahu tacaala calaa rasuulihi sal lla ly sl nabiga markuu u furay maka magaalada maka qatala waxaa dilay hudaylun ree hudayl waxay dileen rajulan nin bay dileen min bani leythin reer leyth qabiilka le ay ka dileen biqatiilin kaana lahum fi ljaahiliyati nin ay kaga dileen waqtigii jaahiliyada faqaama rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa istaagay faqaala wuxuu yidhi ina allaha caza wajalla ilaahay tabaaraka wa tacaala qad xabasa wuu xabisay can makata magaalada maka wuxuu ka xabisay maaragtay can makata alfiila maroodigii buu ka xabisay wasalata allahu calayha oo rasuulahu wuxuuna ku saliday fiilkaas ilaahay iyo maaragtay rasuulka sal sl iyo muminiinta buu ku saliday liajlihim baa lagu badbaadiyey weeyaan wa inahaa in kale maaha lam taxilu xalaal umaaha liaxadin qof kaana qabla an iga horreeyey looma xalaalnimaynin inuu magaaladan ku dhex dagaalamo weeyaan xadiiskan hore usoo qaateen walaa taxilu xalaal u noqon mayso liaxadin bacdi cid iga dambaysana wa inamaa in kale ma ahe uxilat lii saacatan min nahaarin saacadun baa lii xalaalayday wa inahaa saacatii saacadeydan haadii tana xaraam waa ka xaaraan saacaddeedas wax ka dambayna xaaraan bay noqonaysaa wey laa yucdadu lama jaro shajaraha geedkeeda walaa yuqtala khalaaha lamana jaro sidoo kale cawskeeda khalka waa cawska wey walaa yucdadu lama jaro shawkahaa ayadana qodxaheeda weeyaan walaa tultaqadu lama qaado saaqidatuhaa wixii dhacay ilaa munshidin qof naadinaya ma ahaane waman qutila lahu qofkii lagu dilana qatiilun dilmo lagu dilo fa huwa asaga bikhayri nadarayni laba aragtiba u furan imaa an yuqtal inuu qofkii uu u disho wa imaa in kale mehe an yuudi in diin la siiyo faqaama rajulu nin baa istaagay min ahli yaman ree yaman ah yaquulu asoo dhahayo abuushah baa la dhihi jiray faqaala wuxuu yaa rasuulka ilaahayow uktubuu lii ii qora war nabiga alla ii qora waxaad leedahay faqaala rasuulullahi sal ly slm wuxuu yidhi uktubuu u qora liabishah ninka la yidhahdo uma qaama alcabaas ba asagana istaaga ka fagaysa hadalka maadaama warkii nabiga warga dhex geliyey faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulka ila ila aladkhara geedka adkharka liya nooga reeb adkharkuna waxaa la yidhahda walaaliya wuxuu ahaa geed sidoo kale caws ah hoos baan lagu sheegi doonaa oo maaragta caws ahaayo asagana carfo oo diib iyo maaragta riix iyo wanaagsan leh buu ahaa wey oo aad u isticmaali jireen oo guryaha ku carfsan jireen weeyaan fa innaa najcalu kaas waxaan ka ilnaa fii buyuutina guryahan ku dhisannaa wa qubuurna qabriyadana ku dhisannaa oo guryahan dhiganaa bay dhahaan weeyaan faqaala rasuulullahi sal slam wuxuu yidhi ila aladkhara marka laga yimaado geedka adkharka ah can cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhu inahu asaga istashaara annaasa dadkiibuu la mushaaraysto la shuuraystay fii imlaasi almar'ati haweeneyda ayadoo ilmo wada ilmaheeda lagu dilo marka xukunkeeda wuu kala tashtay faqaala almugiiratu ibnu shucba wuxuu yidhi hadalka talada bixinayo shahidtu nabiya sal sl nabig calayhi salaatu wasalaam baan ahaa goobjoog qadaa fiihi wuxuuna xukumay biqurati cabdin aw amatin inuu u xukumay qofkii ilmaha lagu dilay addoon qof addoona in lagu bedelo bedelkeeda addoon la siiyo ayuu u xukumay faqaala marka cumar ba wuxuu ku yidhi qofkii in loo xukunka doonaya in loo gudbiyo hadalkan cumar ba iskale faqaala cumar wuxuu yidhi lata'tiyanna waad la imaan biman yashhadu macaka cid markhaati kuwa in gabar uurla lagaa dilo ilma xitaa ay ku jireen fa shahida macahu wuxuu ninkii la yimid maxamed ibnu maslamatu la yimid marka imlaaskana waxaa weeyaan waa qofka oo ilmaha ku dhex jiro lagu dilo weeyaan can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala qaala rasul llahi sal nabig alayh salatu slam wuxuu yidhi iqtatala waxaa isdilay imra'ataani laba haween ah min hudaylin reer hudayl ah faramat waxay ku tuurtay ixdaahumaa labadooda alukhraa midda kale bixajarin dhagax bay ku tuurtay faqataladhaa way dishay wamaa fii batniha iyo waxa caloosheeda ku jiray fakhtasamuu ilaa nabiy sal sl nabiga usoo maaratay xukun doonteen faqadaa rasuulullahi sal sl nabigu u kala xukmay
ana diyata janiiha gurata ninka ilmaha caloosha ku jirana inuu u xukumay gurada waxaa la yidhaahdaa waxaa weeyaan waa cabdun wa ku macnay aw waliidatan ama maarata qof addoon ah wiil ama maarata wuxuu ahaado ama dumar ama rag wuxuu ahaadaba in loogu bedelo weeyaan weliba wanaagsan addoon wanaagsan baa la siinaya qofkii waqadaa bidiyati almar'ati gabadhina wuxuu ku xukumay inay diyada bixiso diyadan ayaa bixinaya calaa caaqilatiha qaraabadeeda oo meesha qaraanka la iska aruriyo diyadan waxaa bixinaya qaraabadeeda weeyaan xaqna waxaa warasataha waladaha wa macahu waxaana waxaa qaadanayo oo diyada qaadanayo dadka dhexlayay iyo waladaha iyo ilmaheeda markaas ay waday iyo waxay dhasho baa qaadanayo iyo waman macahum ciddii la jirto faqaama marka waxaa istaagay xamla ibni nabaaqatan in la yihahdo alhudali oo raheeda oday baa istaagay marka faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi kayfa agramu seen u bixinaa buu yidhi man laa shariba cidaan cabin wuxuu ka wadaa ilmihii caloosha ku jira seen wax u bixinaa ka wadaa man laa shariba cidaan waxbana cabin walaa akala waxbana cunin walaa nadaqa aana hadlin wala istahalla xataa aana dhawaaqin فمثل ذلك تاسو كله يضل وحاب لغا سو كما سو قادين اهاتay yiri hadalkaas yiri balaa isku xiriirsaday faqaar rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inma huwa marka nabi aad booga carooda ninkan wuxuu leeyahay hadalka quraafaadka meesha la soo istaagay faqaar rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inma huwa in kalama ninka kan min ikhwani alkuhan falaloyasha iyo wax ku wax sixro ayuu maartay walaalhood weeyaan buu yiri oo wuxuu nabiga la yaabay min ajli sajcihi alladii sajcahu maansooyinka iyo tixda uu isku xiriirsaday ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad oola yaabay can ibni camraan ibni xusein radi allahu canhu ana rajula ninbaa gadda qaniinay yadda rajulun qof kale gacantiisuu qaniinay fanazaca yadahu gacantiisa marka wuxuu iskaga fujiyey min fiihi afkiis ninbaa nin kale qaniinay marka maadaama uu gacanta ka qaniinay inuu iska fujiyo marka min fi afkiisu marka iskaga fujiyey nacam فوقعت waxaa soo dhacday thaniyataahu labadiisii falood inuu afkiisa inuu ka baxsado rabo marka kii marka wax qaniinay ayaa wax ka soo dhaceen labada ilkooda labada fool baa ka soo dhaceen fakhtasama ila nabi alayhi salaatu wasalaam bay u imaadeen faqaala wuxuu yidhi yacudu axadukum axadkiin wuxuu qaniini akhaahu walaalkii kamaa sidii yacudu u qanin alfaxla ratigas wax u qaninayaa buu yidhi laa diyata laka wax diyama naga tag buu yidhi diya malhide marka kii wax qanina walkii kasoo dhaceen baa diya malhide walaalka wax u qaninsa ratiga meesha ka dhaqaaji baa lagu yidhi xadiiska inoogu dambeey axibati fillah عن حسن بن حسين البصري رحمه الله تعالى قال حير حدثنا وحنوشك جندب في هذا المسجد سيدك كان مسجد النبوي وما نسينا من إلا منه حديثا حديث كنا وشكنا ولما إلا من بي الحسن البصري وما نخشى كان بقى من أن يكون إنه هذا جندب كذب على رسول النبي كبن شيء والنبي كبن أبو رينا ما هو يري قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كان وحاها في من كان قبلكم رجل به نبا جرد ذلك إنه كهريئها هاي جرح ضوع باقاري فجزع وأرجح وأنا سفر ويا علماء يراهدان فأخذ مرك نينك ضوع مركو قاري قعنت ضوع كسو قاري ضوع حنبا سو قاري وسفر ويا مرك فأخذ وحسوقات السكين توريب وسوقات فحز بها يده قعنت نبو كفس كسيي فما رقى الدم وحكد قلقل ديك حتى ما تديق بس علوي هالبوليه ديق ما نجرين wax lagu daweeyo dhiig joojin ma jirin dhiigi gacanta ka soo baxay ninkiiba u geeriyooday qaal Allah azza wa jalla ilaahi wuxuu yiri abdi adoonkayga baadarani uu isoo dadajiyay binafsi nafti laan xukunkiisu ka soo hormaray way حرمت عليه الجنة سبحان الله إلهي تبارك وتعالى حليه وحن كحرمي جنة إذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.